degmada Xararan oo hoos timaada magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn ayaa maanta olole wacdi gelina waxa ka bilaabay dhakhaatiirta ka howlgasha magaalada Buuhoodle ololahan wacdi gelinta oo lagaga hortagayo xanuunka coronavirus-ka ololahan ayaa waxa bilaabay dhakhaatiirta ka howlgasha isbitaalka weyn ee magaalada Buuhoodle Al-Hayaad ayaa wacdi gelintan lagaga hortagayay xanuunkan coronavirus-ka dhakhaatiirtu waxay wacdi gelin ka siiyeen iskuulka degmada Xararan iyo waliba sidoo kale shacabka ku dhaqan deegaanka ayagoona goob fagaara ah oo magaalada dhexdeeda ah ugu qabtay wacdi gelin lagaga hortagayo xanuunka coronavirus-ka xanuunka oo aduuba hadda inay sameeyaan meel karantiin oo baca iyo alwaax ka samaysan insha Allah waxaa taas inay jaariyadii awareness qaataan oo u diyaargaroobaan oo guddiyo caawaan oo deegaanka la soo xiriiraan inaga isu dowladana inaga isu wasaarada inaga waxaan wixii sidii isaga wacyigelin lahayn isaga dowladin lahayn ugu diyaargaroobaan inta ويقولون إن شاء الله تعالى علينا قوة يسرة المدينة إن شاء الله أما تقابل بروح الزمان حياة كمان ليلة حياة كرتونك يمكن إن شاء الله أمريك هالقوة كاس شبابي سيا هذا الرجال أفكار عافمة تأثير لهم طويل إذا هذه ديجا كبر الربع أنا لا أتعاون سيد الله سيد الأسكار على الهيئة سيد الله تعالى حتى وشوف بك الهيئة أما قبل الله مع الهيئة هذا حنونكم حين وجهه تجينا أنتوا من إنه إيمان كهر وحوجه الرأي إنه وجهه تجينا وحوح له هاي تينتا قفل بعض إنه كده على النفتيسة سيدا وفرح الله يسلو كلا إلهي ولا سلام لكن إلهي سلام فرح بدر وقفل بعض سلام. Be very careful of the hygiene. فرح شو hygiene, washing your hands. If you see anyone having argab, at least isolate yourself to avoid getting argab to other people. I think that Jamila, you have said a lot. إننا الدينين كوعي قرينا ولسنا حرانية كنورة فارس ويفافية ويوتقنا ويوتقنا حنوكي تلقي الرئيها إشراكياتك سيا الدينين ويغفرا سيا يبطه وحي اللي كلية مقعد كان واحد استصني إن تدك بلغوا عيبرية وحنا لغا بارا كنورة فارس وامحي كنورة فارس وقيد كاملة فارسية كاسو كل فافا تاوشنا نسكو في isku hindisida dhalinyaro gashiga meel wasaafida isku meel isugu yimaado iyo in goobaha sida iskoolada iyo goobayaasha kale ee maqaaxiyaha yaryar oo kale in xanuunku ku filayo inta ku ag joogtana inaad qaadsiiso iyana inay bulshada sii qaadsiiyaan dabadeedna dad badan ay meesha ku haligmaan waxaan idin leeyahay walaalayaal aan u dadaalo waxaa laga yaabaa muddo yar in waxaan ilaahay naga qaado midda labaad qur-aankana hala cuskado hala tasbiixsado waana markii ugu horeysay oo dhakhaatiirta ku nool magaalada Buuhoodle ay bilaabaan wacdi gelin lagaga hortagayo xanuunka coronavirus-ka Maxamed Ali Bile TV-ga dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland deegaanka Xararan.